munaasabad culus oo lagu soo dhaweynayay taageerayaal mugya miisaan leh oo horkacayo Cabdi Xasan Maxamed oo ahaa gudoomiyihii xisbiga wadani ee deegaanka Hulul ee gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee gobolka Togdheer kuwaasi oo ku soo biiray xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye madashan oo aad loo soo agaasimay waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga Kulmiye Nasra Qaliyax cuqaal duqay haween dhalinyaro iyo waxgarad reer Togdheera oo soo dhaweeyay xubnaha ku soo biiray xisbiga Kulmiye kana soo baxay xisbiga wadani Cabdi iyo taageerayaashiisa ayaynu saaka halkan ku soo dhaweynaa Cabdi Xasan Maxamuud oo ah oday wax badan inagu soo kordhin doona hadaynu nahay xisbiga Kulmiye isaga iyo taageerayaashiisa ayaynu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay Cabdi Xasan adiga iyo taageerayaashaadaba waxaan kugu soo dhaweynaynaa xisbiga Kulmiye si mugle si miisaan leh qalbi furan gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa sida loo magacaabay ka soo wareegtay xisbiga wadani oo soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u leenahay ku soo dhawaada xisbigiinii iyo shacabkiinii iyo muxuu ahaa dadkiinii ku soo dhawaada waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada xisbiga Kulmiye waa xusbi aan takoor ahayn waa xusbi loo siman yahay waa xusbi ka iminka soo galay iyo kii weligii ahaa ay talada wada leeyihiin waa xusbi aan cid kala riixanayn waa xusbi dadka u dhaxeeyo way manhajkan aanu maanta halkan ka qabanaynaa uu yahay inaanu soo dhaweyno taageerayaal ka soo diga rogtay xusbiga wadani oo hadda ka hor aniga laftarkayga waan ka soo diga rogtay odayaasha taageerayaasha mugga iyo miisaan kale oo uu madaxda ka yahay mudane Cabdi Xasan Maxamuud oo ka tirsanaa golaha dhexe ee xisbiga wadani haddana gartay inuu ku soo biiro xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee Kulmiye waxaanu leenahay soo dhawaada kulli xafladeenu waxay ka mid tahay soo dhaweyn taageerayaal badan oo cusub oo ku soo biiray xisbi xaakimka Kulmiye oo sidii salaamaya taageerayaasha wadani ee ku soo biiray xisbiga Kulmiye xisbi xaakimka ninkan ku soo biirino xuma haysto Maxamuud dayax bari waxaan leenahay ku soo dhawow xisbiga Kulmiye ku soo dhawow baaweynta Kulmiye saarifsataan been ayaa masaarifsataan waxaan jirina waa sheegtaan baabuur qoorta laga lulaaya maaha sacab la gargaraacayana maaha inamo yaryar oo fan maniyo lacag la siinaya maahe qalbiga wax laga jeclaadaa Kulmiye qalbiga laga jecel yahay wax qabadkiisa muuqda indhay dadku leeyihiin siyaasi Cabdi Xasan Maxamed dayax bari iyo cuqaashiisa oo ka hadlay iyaguna munaasabadani ayaa shaaca ka qaaday inay si niyad samiya u taageersan yihiin xisbiga talada hoggaanka dalka haya ee Kulmiye hiilyahoona la garab istaagi doonaan deegaanada ay wakiilka ka yihiinna ay la qabaan fikirka iyo afkaarta ay ugu biireen xisbiga talada haya anigu waxaan ahaa xisbiga sheegteen ee wadani in badan baa la shaqeeyay saaka halkan waxba ka sheegi baa wuxuu yahay waa xisbi sharci Soomaaliland ka mid ah laakiin waxaan ku arkay ka dambaa sheegi waxaan kaloo idin sheegayaa xisbigeena Kulmiye magaalada liyaado Hulul Nuurcilaan Abdullah Soomaare Adama iyo Cirdibu Adama Gudbahalle waxaan ka yeedhay sideed magaalo caasi ka tagay sideed maxaa ay wixii xisbiga ahaa ee raacsana ee xagga u hogaamiyay waxaan ku dhahayaa waxba ku soo way reerkii kanu deeyay Absa Faarax Abdullaahi TV qaranka Soomaaliland Burco.